leylay ka waran maahmaahda ah aan sii raacsaday waxaad moodaa in aad su-aashan u dabagalay daawadayaashu ila qabaan baan filayaayo su-aashan far baa ku mudnaydo toddobaadkii horena aad bay maxay ahayd loo xiiseynayay jawaabteeda in la helo weliba waa laga xanaaqay inaynu joojinay maahmaahda ah maxaan ku dhahay silic ku nool soddon gursataa dhaanta waa silic ku nool soddon gursataa dhaantay dhahaan weliba dumarka Soomaaliyeed baa isugu maahmaaho marka saas oo kale gabadhii cabashada gabadha kale ay u keento ama hooyadii u keento ama eedadii u keento ama habaryartii u keento ay yiraahdaan maalin walba ka soo cadanaysaa maahmaahda intay u sheegaan maxay ahayd yani waa ka tag hadda soddon gursato adigoo farxad ku nool baa dhaanta inta silic ku noolaan lahayd oo kale marka bal ka waran runtii waxaan dhihi karnaa maahmaahdaas waa maahmaah aan jirin oo baadil ah waxay ku tahay ma jiro guri mashaakil aan lahayn ama dhibaatooyin aan lahayn ma jiro waxaan ognahay guriga rasuulka sallallahu alayhi wasallam baan waxaan arkaynay ayadoo maaliyada laga hadlayo in macnaha ay sheegay dhaqaalaha ay sax macnaha dumarka rasuulka ayaa rasuulka in loo ziyaadiyay ka dalbanayeen oo aayad quraan ay ku soo dageen waxaan arkaynaa ayadoo uu iimaanay qeyradii iyo masayrkii aan arkaynaa Aisha runtii saxankii jabinaysa Isaaq Safiya waxaan arkaynaa Aisha oo cabanaysa runtii ii sheeg ka cabanaysa rasuulka sallallahu alayhi wasallam baan arkaynaa marka guri aan mashaakil lahayn ma leh haday yani maahmaadan waxyaalaha baadil kala sita waxay tahay hadaad gurigan mushkil uga tagtid oo waxaad xambaarsan tahay fayruus ah in yani in guurku uu yahay wax aan wanaagsanayn ama guurka inuu mashaakil yahay gurigii aad tagtid oo kala runtii ama qoyska kale aad dhisatay waxaad la tagaysaa mashaakilshii aad xambaarsanayd dhibaatadii aad xambaarsanayd sidaa darteed baa waxaan leeyahay gabadhu ama ninkuba labada ii sheeg zawjayka lamaano waxa looga baahan yahay markasta gurigooda inay u kalmeystaan sabir iyo dulqaad waxa looga baahan yahay oo kale inay markasta ay ogaadaan nolosha inaysan ahayn farxad daa'ima nolosha inaysan ahayn yani shax xilli kasta nolosha inay leedahay step gaaja imaanaysa waxa imaanaya dhibaato nafeed waxa imaanaya mid maaleed waxa imaanaya mid ubad iyo isheeg iyo caruur markii hadda ilmuhu ay koraan oo kale waxay qoyska ku soo ziyaadiyaan mashaakishii labada qof inay yaraataa dhici karta laakiin mashaakisha qoyska ku soo ziyaada inay noqdo tii ilmaha oo ilmihii oo ilmaba nooc gooni ah runtii u koro ilmaha uu u baahan yahay yani uu u baahan yahay runtii inaad si gooni ula macaamiltanti sababtoo ilmaha kale waa ka gadisan yahay marka waxaan dhihi karnaa maahmaahdaasi maahmaah saxa ma aha qoyska khilaafaadka wuxuu u yahay xawaajiyada sida cuntada loogu carfiyo oo kale buu u yahay khilaaf uu imaanaya waa laga heshiinayaa noloshuna waa ka sii fiicnaanaysaa kana sii farxad badnaanaysaa marka waa maahmaah runtii guryaha lagu duminayaan dhihi karnaa waa maahmaah guryaha lagu duminayo leila maahmaahdaas waxay aad bay u tafatirtay leila aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa su-aashayda xigta leila su-aasheena kale waxayna leedahay weli waa su-aal anigu aan hayo waxaan ku guda jirnaa daawadayaal saad ogtihiin bartamihii barnaamijkeena madasha qoyska leila su-aashan aan ku hayo doonay inaan kaa weydiiyo barnaamijkan ku jirnaa dabcan waa barnaamijkeena isfahanka lamaanaha daawadayaashu sidaas ha u fahmaan maxaa sababay isfahanka lamaanuhu inuu hoos u dhaco dunidan casriga ah iyadoo dadkii laga yaabo inay dhaqaale haystaan mararka qaar laga yaabo inay aqoon leeyihiin laga yaabo inay cilmigii qoyska oo kale ama hagidii qoyska iyo sidii wax loo xalin lahaa ay heli karayaan waxyaabo badan laga yaabo haddana maxaa sababay runtii waxaa sababi kara arrimo dhowr ah arrimahaas oo ka mid yihiin in badan waxaan arkaynaa guryihii maantay in ay soo gashay thaqaafo culture aan ahayn culturekeeni aan ahayn dhaqankeeni ahayn inuu gurihii soo dhex galay waxaan arkaynaa musalsaladan aflaamta ah atuurahan wuxuu jilayaa wax loo soo dhiibay marka in gabadhu markay daawanayso ama qoyska oo kale ay u arkaan waxaan arrin dhaba inay tahay oo yani ay noloshooda saan tahay ay macaankan iyo wixii lamidka ay tahay misaaliyo saacada lagu soo ururiyo la jilayo arrintaas runtii mushkil ku keentay in lamaanaha xilligan la joogo oo isfahmi waayo waxaa kaloo jira isfahamka aan hore uga soo sheekaynay oo ilaahay labadan qof inuu kala duway ayadana waa arrin runtii qayb ka ah in xilligan casriga ah yani uu xumaado isfahamka labada qof waxaan ognahay markii hore xilliyadii hore ama anaga waalidkeen oo kale markaad fiirisid labada qof waxay isku dooranayaan way koobnayd dhaqanka qoyskana
wuxuu ahaa wax xadidan oo kooban buu ahaa laakiin infitaaxan badan oo adduunkan hadda la dhex galay oo meediyaha meel kasta aad arkaysid yani noloshu furfurnaasho zaa'id ay leedahay waxay noqotay markaa in mashaakishu uu bato sababaha keenayna ay ka mid yihiin sababtaasan hadda sheegno oo kale waxaa ka mid ah oo kale in qofka kale markuu mushkilada rabo inuu soo gudbiyo inuu fududeysto in hooyadu ay mushkilad dareemayso markay aabaha usoo gudbiso aabuhu inuu dhaho waxa kan waqti kale ama nooga dhig ama u yareystaba wax qiimo leh uusan uga dhigin qofkii macnaha raggiina sidoo kale markuu mowduuc rabo inuu ku furfuro guriga dhexdiisa ama uu tabayo ama dhaliil jirta ah in uu qofkii kale u fududeysto horta waa arrimaha runtii keena xilligan aan joogno waxaa kaloo ayadana mushkilada aan dhihi karo asaasi mushkilooyinka ugu weyn bay ka mid tahay in uu qofka dumarka ee ninkii uu dhaqdo mashaakisha waxyaalaha saldhiga oo ay tahay ninku si caqlaani ah inuu qofka dumarka ula hadlo qofka dumarka waxaa loo baahan yahay si runtii caatifi ah oo turnin ku jiro inuu zawjku ula hadlo ama mashaakisha markuu soo darxinayo oo soo gudbinayo oo kale oo u hadlo qofka dumarka ah ayada laftigeedii inay ay hab caatifi ah wixii ugu gudbiso oo aan si dhab oo jiddiyo ku jirto runtii oo xiwaar runtii uu qaybta lixaad kale u ka yahay in labada qof ay wada xiwaartamaan inuusan qofka kale uusan taa samayn runtii waa waxyaalaha mashaakisha ma aragta ziyaadiya waxaa kaloo ka mid ah xilligan aan joogno waxa aad u badan culeysada dhinaca shaqada aba aad u badan hadday tahay raggii iyo hadday tahay qofkii dumarka xataa hawshii guriga ka haysatay ilmuhu maanta jira ilmihii hore ma aha shaqooyinkana waa shaqooyin aad runtii aan dhihi karna xilligan weliba burburka aad ragga ay shaqada ugu badan tahay marka inuu ninku xilli kasta dibdhac uu ka sameeyo in lamaanihi ay isfahmaan ama mushkilo dhexdooda ah ay xaliyaan waxaaba ka badan hawshiisa iyo camalkiisa meeshaas waxaa imaanaysa marka in mushkiladii ay marmar ka dambayso mashaakishii ay bataan waxaa kaloo ka mid ah runtii waxyaalaha ama jiitamaan muddo qaataan muddada ay soconaysa ay qaadanaysaan runtii labadii qalbi isuma fiyoobo oo qofka kale wax uu rabay in laga shaafiyo buu wataa oo xambaarsan yahay waxaa kale oo keeni kara runtii ama aan dhihi karnaa qayb bay ka qaadan kartaa in xilligan la joogo in ay mashaakishooda si nabad u xalistaan waa inay helaan waqti munaasab ah oo labada qof ay ku wada fariisan karaan oo dhibaatadii dhexdooda taala ay ku xalin karaan waa in markaa kadib la heli karo qoyskii inuu wada hadlo hadduu rabo wax xadidan oo macluum oo la yaqaano runtii in laga hadlo laakiin uusan wada hadalkii noqon wada hadal iska furan oo yani hooyadan waxay rabtaa ay ka hadasho sababtoo ah waqti baa dhumay waxna lama xalin ragguna saan soo sheegnay wuxuu focuska saaraa hal shay diiradda wuxuu saaraa hal shay buu yani xooga saaraa marka in ay hooyadu nidaamsato dhibaatooyinka ay dareemayso midda koobaad midda labaad midda saddexaad sidaas ma aragtay mashaakishii runtii loo xaliyo waxaa kale oo ayadana aan ka marnayn oo muhiimadda gaarka ah leh in dhibaato kasta oo qoyska dhex timaada ama xiwaar kasta oo dhexdooda ah ama inay tafaahum ay rabaan mas'ale inay iska tafaahumaan inuusan meesha ka marnaan jacaylkii inuuna meesha ka marnaan in la isu turo inuuna meesha ka marnaan qofka kale qalbiga inuu ugu hayo wanaag inuu afeef waliba uu sii dhigan karo qofku oo qofkan wanaag uu leeyahay aad sii sheegi kartid waxay qaboojisaa khilaafka labada qof bay qaboojisaa qofba waxaan arkaynaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo leh famaa baalu qawmin leh yacni wixii cumuum oo kale inaad ka dhigtid laakiin shakhsiyadiisa wax duraya inaadan ka dhigin waxa markaa laga wada hadlayo laakiin mushkilo qoyska kusoo qoyska dhexdiisa timid laga dhigo mushkiladana ayna ka marnayn jacayl iyo ixtiraam iyo runtii qofba qofka kale inuu danaynayo ihtimaam u hayo